بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا شيكada yadii taxanaha ahayd ee ku saabsanayd ama cinwaankeedu ahaa intaad ifka nooleed maxaa kugu daraa qaybta saddexaad ninka ka sheekeynaya saddexaad ee la yaabay kii saaxiibkiisa ahaa yiri wax kugu dhacay ma jirto ayaa waxa uu ku bilaabayaa sheekadiisa sidan waxaan u safray magaalo yiri markaan dhowr casho dhexda ku soo jiray ayaan meel reere ka guureen roobna uu ku da'ay laakiin aanay biyo markaas dhulka fadhiyo aanay jirin anigana harraad xun iyo gaajo isugu kay darsameen ayaan imid buu yidhi waxaan arkay buu yidhi ceelkii baan afartii karkaare geesaha ahayd mid ka mid inta saa ugu istaagaan biyihii hoos u dhowray buu dhowritaankii aan saa u dhowray waxaa ila sidbaday buu yidhi geedkii guntaan ugu dhacay buu yidhi laba habeen iyo laba maalmood markaan ku jiray oon hoogoo ba'ay yaa show qoysas baa meeshii u soo guuro soo naq raacay roobkan cusubka soo raacay roobkan cusub foodle yaryaro iyo kuray la jirtay ari yaa ceelkii agtiisa maray alla ceelkayagii aanu biyaha ka cabbi jirnay waa ka ceelkayagii sheekadooda waan maqlaa buu yidhi markay soo dul istaageen yaan is idhaad caawinaad weydiisatid war yaa islaana ceelka iga bixiya afkayga ma ka soo baxday dhawaaqii eekowga isgaraacay waxay u arkeen waxan cagahay wax ka dayeen reerihii bay u tageen waxay yidhaahdeen ceelkayagii waxaa ku dhacay jin baa ku jira ceelkeennii jin baa ku jira ilaahu sida iga dhig beenan sheega soo baxa islaamiyada waa soo raacay ceelkii markii jinniyow ka bax dhagaxa horta lagu salaamay acuudu billaahi min ashaytaan rajiim war jin baa ku jira dhagaxa lagu sutuuray waa la soo istaagay ceelka afkiisii markay soo istaageen saa u soo dhowreen baa war maxaad iga dhowraysaan islaan matiin iga bixiya yaa maqlo codkayga alla waa jineey naagihii carare raggii baa loo yeeraa la yidhi ceelkii suugay ku sii dareenoo wixii bay sii qurqurxiyeenoo waxay yidhahdeen ceelkii dhagaha iyagaan ku maqla tilmaamaa lagu sii daray ilmihii yaraa waxay yidhahdeen ceelka markaanu saa u fiirinay afkiisa sidaasu u jeexna laba gees buu lahaa hal iloo weyno halkan kule ilmihii baa balaayo kale iga sii sameeyey buuri dadki waa u qaateen odayaashii markay meesha yimaad waa loo qaatay ceelkii baa la yimid markaasaa la yidhi war maxaad ahayd war insi baan ahay yaa codkayga maqlayo dhagaxa la igu soo shubayo waxa quraan iyo asma meeshan la igu soo gamayo ma malayn kartid buu yidhi odayaashii talay keeneen waxay yidhahdeen ceelka jinka aanu ka saarno qur'aan aanu akhrino ceelka agtiisa geed ku yaallay baa lagu qashay buu yidhi lagu qashay ari lagu qalay meeshii baa culimo wixii zoonkaas ama eriyadaas lagu ogaa inta la isugu keenay baa layidhi xagga ula sii jeesta qur-aanka ceelka xaggiisa loola sii jeesta halkaas yaasiimi iyo la isugu kaysaa saaray buu yidhi shaqartooda iyo guuxa waa maqlaa mar walba waa yimaada waryaa jinni meesha ma wada deganaan karnay nooga guur abka ab baanu deganaan jirnay nooga guur ceelka annagaa qodannay haddaad ilaahay taqaanad nooga guur haddii kale wallaahi qur'aan baanu kugu gubaynaa jinmiyo afkay marka ka soo baxaysan weli waa ku jiraa yaa ilaahay yaqaan raggu isku mid maahe nin raggii ka mid ahaa yar war heedhe bal aan soo hubsado war ka joog iyadoo loo ceelka soo istaagay war maxaad ahayd jinniyo war jin ma ihi dhegto ii dhigay bure nin miyir degan buu ahaa dhegto ii dhigay war maxaad ahayd markaas isu sheegay war insi baan ahay maxaa tiri insi baan ahay maxaa ku geliyey meeshan war maanta ku saddex baan walaalow ku jiraa maxaa ku geliyey afarta geed ee taagan geesihiisa saaran fiir buu yidhi mid ka mida ma maqan yahay kaasaan ku istaagay buu yidhi anoo biyaha dhowrtadle in la gaari karo oo ceel gaaban uu yahay in kale baalkii baa ila sidbaday buu yidhi saasaan gunta u galay kii baa colcolaadiyoo raggi u yeeraroo nin baa meesha ku dhimanaya kaale ee jimbeele xargaa la ii soo daadiyoo soo qabsaa la yidhi ma karaan iri buu yidhi raggu kale calool adaga ninkii meesha iigu yimid baa yidhi anaa u galayo war waxaa muu isbedelaa jinku ugu noqdaa mawaalantayniyo war wuxuu doona ha noqdo anaa galay yidhi wallaahi waysan jin ayan gal ninkii baa galay waa isoo xirxiray labada yadiyaa nala wadaamiyey way bannaanka naloo saaray te maxaa dhacay waxaa dhacay inta neef la ii qalay jirkayga subag la diiriyey la mariyey caano la isiyoo la ii nooleeyey anoo xirribiya xataa ay xiirmeen farhaygu soo wada kuduuteen yaa bishintu ay nooc kale i tahay ayaa meesha laiga soo saaray laiguna baaniyey dhowr casho laigu baaniyo la i gartay meeshaan ka imid iyo xaaladdeeda la gartay
anigana niyaho beriga ayaa dunida iigu dareed buu yidhi. kan afaraadii sheekada sheegi doona ayaa ku qoslo yidhi waxba ma aad arkin, aniga waxaa igu dhacay buu yidhi sheeko inta aanu qaybta afraad ku kulmayno waxa aanu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.